هدا الدون دون إسان الدون ينا فعليكم بالعلم وحبرته هدا آخر دون إسان نقول إستانا فعليكم بالعلم لبضبا أقوم بوحكتره qofku noloshiisa adduunyo cilmi bay ku dhisantay hadday tahay diintiisa caqiidadiisa cibaadaadkiisa dhaqankiisa akhlaaqdiisa dhammaantood aqoon bay ku dhisan yihiin hadday tahay mustaqbalkiisa kale adduunyo iyo xoogsigiisa iyo shaqadiisuna iyana aqoon bay ku dhisantay sida awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam subaxii marka waagu u bariyo ee uu salaada subax tukado wuu wardiyi jiray ama ducooyin buu akhrisan jiray ducooyinkuu nabigu akhriyi jiray waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo allahuma inna asaluka cilman naafica wa risqan tayiba wa camalan mutaqabala subaxii waagu markuu bariyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray ilaahu waxaan ku weydiisanayaa cilmi waxtara muu odhanin cilmi badan oo qura ama cilmi saxiixa laakiin wuxuu tilmaamay cilmi waxtara cilmi nafci leh cilmi fruit leh la goosto cilmigu marka lagu dhaqmaa buu waxtariyey hadduu ka diimeed yahay marka lagu dhaqmo ayuu waxtar yahay hadduu ka adduun yahay marka lagu dhaqmo waxtar yahay sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam subaxii markuu soo tooso ee uu salaada subax tukado ducada uu akhrinaya waxaa ka mid ahaa ilaah waxaan ku weydiisanayaa cilmi waxtar leh waxaa kaloo ku weydiisanayaa camal la aqbalo oo cibaadaadka iyo salaada iyo waxaynu samaynayno haddii rabbi inaga aqbali waayo qiimo badan ma leh waxay qiimo leeyihiin marka cinda allaahi la aqbalo waxaa kaloo nabigu ku ducaysanayay iyo risqi tayiba ay xalaala arsaaq xalaal oo aan xaaraan ahayn idinku waxaad joogtaan wakhti noloshu bilow idin tahay oo ay tahay ina aqoonta si fiican u barataan markay diin tahay ilaahay wuxuu ina leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah baro ilaahay inuu keli yahay ka xaq lagu caabudo keligii inuu yahay ka la caabudo ilaahay mooyaane cid kaloo la caabudaa ma jirto hadii lagu yidhahdo yaad caabudaa allah bes nabi maxamed miyaa la caabudaa maya nabi maxamed waa rasuulka ilaahay inoo soo diray diintaa laga qaataa laakiin cidda la caabuda waa ilaahay oo qura saa awgeed ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik ogow oo baro ilaahay inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma qofka og waxa rabbi soo dejiyey qur'aanka ahi inuu xaq yahay qofka og miyuu la mid yahay qofka indhaala buu alla tilmaamaya qofka indhaala maxaa looga dan leeyay waa qofka xaqa ka indhala aan xaqa raacaynin idinka markaa ereygaan idin odhanaya maadaama caruur soo korayso hadda waxbaranaysa ay tahay inaad si fiican wax u barataan waxaa baranaysaan inaad si wanaagsan u sugtaan inaad ku dhaqantaan inuu dhaqan iyo akhlaaq idiin noqdo noloshiinna dambe ku maamushaan adduunyadiinna barta aakhiradiinnana barta labadabana waxaa idin anfacaya waxa macallimiintiinu idiin dhigaysee diin ah ama adduunye ku saabsan labadaba inaad si wanaagsan u sugtaan oo isku daydaan inaad meel ka gaadhi kartaan inaydan wakhtiga iska lumin
qofku waqtiga uu leeyahay waqti uu wax barto waqti uu wax cuno waqti uu seexdo iyo waqti uu cayaaro laakiin waqtiga cayaarta waa inaanay ka badanin waqtiga la seexanayo ama wax la baranayo waqtiga wax la baranaya waa inuu ka bataa waqtiga la cayaarayo saawgeed anigu eraygaan idin leeyahay waxa weeyaan haddaa adduunyo rabtaanna wax barta waa meel gaadhaan haddaa aakhiro rabtaanna wax barta waxbarashadiinnuna ha noqoto mid dhaqanku ugu horreeya diintu iyo akhlaaqda fiican mid ay ugu horreyso ha noqoto arday soo kalahday oo waxbarasho u soo kalahdatiin marba waqti badan inaan ka lumiyo ilaahay waxaan idinka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu waxbarashadiinna idin fudaydiyo xaqa idin waafajiyo waalidkiina ka abaalmariyo dadaalkaasi ay idin gelayaan iyo macallimiintiinuba sala allahu calaa muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin